iminkana Gabiley wararka ka imanaya deegaanka Wajaale oo ka tirsan gobolka Gabiley ayaa sheegay in halkaasi uu ka dilaacay shuban biyood soo warbixinta warkan inoogu soo diray waryaheena Sakariya Raage Ibrahim. xanuunka shuban biyoodka ayaa ka dilaacay magaalada Tog Wajaale ee ku taala xuduudda Soomaaliland iyo u dhaxaysa Itoobiya ee gobolka Gabiley. xanuunkani shuban biyoodka oo sida ay sheegeen mas'uuliyiinta cisbitaalka Wajaale lala tacaalayay muddo 2 toddobaad ah ayaa cisbitaalka la soo gaarsiiyay ugu yaraan dad gaadhay 111 qof isla markaasina u badan caruur. haddaba waxa arintaasi warbaahinta u faahfaahiyay agaasimaha cisbitaalka degmada Tog Wajaale Dr. Umar Abdi Guleed waxaana uu yiri waxaanu aragnay 28 bisha shanaad 2017 sida gudoomiyuhu sheegay dadka inoo soo galay waxa weey waa 111 qof oo 79 qof la daweeyay iyo caafimaad qabay cisbitaalkii ka baxeen dadka maanta inoogu jira kuwa hadda soo galay intaan waarka mareynay soo galay oo 6 qof ah iyo kuwii ilaa xalay ilaa shalay ku bariyay oo 230 qof dadka cidii la dnaatay caawa galabta afarta ayaan fasaxna markaan xaaladooda eegno ee la buufiyo ee dharkooda iyo xoog ay halkan ku maydaan ayaa la fasaxaya laba rabo qof halkan ku jiray iyadoo la buufin dadkii soo booqday isaga aan dharkiisa iyo weelkiisa aan la buufin inuu taga dooni mayn sidii la sheegay numberka emergency call-ka ah ee qofka heeganka cisbitaalku haysto ayuu qofku soo garaacaya ambalaaska iyo shaqaalihiiba waa u diyaar qofku iyaga soo qaadaya numberku waxa weeyaan waa eber 633 hal eber hal. sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Tog Wajaale Xaashim Maxamuud Cabdi iskuduwaha caafimaadka gobolka Gabiley Dr. Jimcaale xogayaha dawladda hoose ee degmadaasi Cabdilaahi Xasan Samaale iyo taliyaha booliiska degmada Tog Wajaale Gaashaanle Cabdisalaan Diinqale oo dhammaantood dadweynaha ugu baaqay in la ilaaliyo nadaafadda si looga badbaado xanuunka shuban biyoodka. dhibaatadii shuban biyoodka degmada Tog Wajaale muddadii ugu horeysay lagu arkay degmada Tog Wajaale shuban biyoodka waxay ahayd 28 bishii shanaad 2017 dooyinka dhowr 10 cisho laga joogo muddada dhowr 10 cisho laga joogo waxa isbitaalka soo galay 111 qof oo shuban biyoodkaas ku dhacay 111 kaasi 9 kamid ah way ka bogsadeen oo way ka baxeen waxaan markaa u jeefa oo isbitaalka dhex yaala waa 230 marka aad eegtid qaabka ay u socoto xanuunka ama isbitaalka uu soo gaarayo maalinba maalinta ka dambaysa uu soo kordhaya sidaa daraadeed waxaanu baaq culus horta u jeedinaynaa shacabka iyo dadweynaha ku dhaqan degmada Tog Wajaale oo aanu leenahay waa inaad taxadar fara badan aad samaysaan oo nadaafadda lagu dadaalo oo caruurta nadaafadeeda lagu dadaalo oo meelaha qashinka iyo waxa oo dhanba la nadiifiyo waxaanu baaq culus u jeedinaynaa maqaaxiyaha iyo meelaha la isku imanayo waa inay nadaafadooda kor u qaadaan maqaaxidii aan nadaafadeedu kor u qaadsanayno aragno ganaax culus baa la saaraya xamaamiyada suuliyada la isticmaalay private-ka meelaha kasta oo la isugu yimaado waa in nadaafadeeda kor loo qaado shuban biyoodkani maaha markii koowaad inagu yimaado wadanka gaar ahaan waa meeshii ugu horeysay ee wadanka ka soo galo shuban biyoodku magaalada Tog Wajaale sanadkii hore bishii December ayuu shuban biyoodkaasi yimid ilaahay fadligiisa waynu ku guuleysanay inaynu la tacaalno xanuunka oo wasaaradda caafimaadku aad iyo aad bay hawsha looga hawlgalay oo in la cirib tiro xanuunka shuban biyoodka ilaahay baynu ugu mahadcelinaa imikana soo rogaal celintan uu yimid wadadeedii bay haysaa iyo majaraheedii wasaaradda caafimaadku oo uu garwadeen ka yahay wasiirka caafimaadka Dr. Xagla Toosiye imikada qaar waxa la sheegaya ku jira baliyada xalayna way dhaamiyeen booyadu xalayna way dhaamiyeen amarka baxay haday qaadan waayaan
gacan adag baa lagu qaban doonaa si aanay bulshada u aafaynin. waxaa kale oo warbaahinta xaaladooda caafimaad uga warramay dadka uu xanuunkaasi soo ritay ee lagu dabiibayo cisbitaalka degmadaasi Togwajaale. waxaan dadkii xanuunsanayaan ahay xanuunkan ku dhacay baan ahay anagu aad baan u fiican dadkii loo daad ku geeroodana waan leenahay laakiin anagu waxaan midlaan baan u nahay sida kale laakiin aad baan u fiican nahay aadna waan u xanuunsanay waan labana dhaqaatiirtana waan aad baan ugu duceynaynaa maashaan marayna walaal marka ilaahay inta bartaan oo caafimaadka maxaan xanuunsanayna dadaal baa fiican baa lagu hayaa Allah noo caawiyaa lana insha Allah barakadeeda. si kastaba ha ahaatee magaaladani Wajaale ayaa ah magaaladii afraad ee uu dalka Soomaaliland ka dilaaco xanuunkani shuban biyoodka iyadoo horena uga dilaacay magaalooyinka Boorama, Burco iyo Buuhoodle. Sakariya Nuux Ibraahim, Somali Cable TV, gobolka Gabiley.